kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni gorfaynta ee wakaalada wararka ee Kilwa Media qodobkeena labaad ayaa noqonaya yaa u qarniqi doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ururka haweenweynaha qaranka Soomaaliyeed Jubbaland oo war ka soo saartay dagaalkii dhexmaray iyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sharci darro ku tilmaamay heshiiskii Soomaaliya iyo Itoobiya dalka Sacuudiga oo 2034 marti gelinaya koobka adduunka sida ay xaqiijisay FIFA markale kulanti wanaagsan daawadayaal si sheegaya barnaamijka Soomaaliya waxa ka taagan khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka haweenweynaha qaranka Soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo garab ka helaya General Gobe waa wasiirka qoyska iyo horumarinta arrimaha qoyska ayaa la sheegay inuu xaraashiyo gurigii ururka hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed ay u dhistay oo dhaxalka uga heleen dawladii kacaanka Soomaaliyeed waa sida lagu sheegay amar ka soo baxay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Gaballe oo 24 saac gudahood u qabatay wasiirka qoyska iyo horumarinta arrimaha haweenka ayaa sheegtay in General Bashir Gobe uu doonayo inuu boobo xaruntii hooyooyinka Soomaaliyeed isagoo adeegsanaya awoodda dawladda shirka fargeesooda oo ay isugu yimaadeen ururka haweenka Soomaaliyeed ayay wasiirka duldhigaan go'aamada soo socda in wasiirku gabi ahaanba uusan soo gali karin xarunta dhismaha hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed in aysan shaqaalaha wasaaraddu u soo shaqatay karin guriga hooyooyinka in wasaaraddu 24 saac gudahood kala baxdo wixii qalab ee ka yaala guriga hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed haddii ay ka qaadan weydaan wixii meeshaas ka dhaca oo mas'uuliyadda qaadayo General Bashir Gobe waa hagaag dhanka kale waxaan su'aal weydiin doonaa General Bashir Gobe soo dhawo wasiir horta meesha yaa degan lacagta ka soo baxda xagee martaa waxa sheegtay in kira laga qaato oo ay haween gaar u xiran tahay waryaal baa degan idaacadaha degan shacab baa degan ganacsatada degan shirkadaha degan waxaasoo dhan baa degan waxaasoo dhanna muxuu ahaa dhaqaalaha ka soo galana anagu meelay marto ma naqaano wasaaradduna wax xiriir ah iyo wax maamula lama laha organisationada degan waxaa jira organisation wata magaca dumarka golaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah gurigana gacanta ku hay ururkaas markaanu baarnay waxaan ogaanay ururku inuu magac kaliya yahay laakiin urur dhisan oo shaqeeya oo qaranka qarannimo iyo sidii magaciisu ku shaqeeya inuusan jirin hase soo jira gabdho dhowr ah oo magacaas wata gurigana ku shaqeysta degan kireeya ayagu wixii nafc uga soo baxana ayagu isticmaala Jubbaland oo war ka soo saarday dagaalkii iyaga iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku dhexmaray deegaanka Raas Kamboni ee Jubbada Hoose Jubbaland ayaa sheegtay inay wada hadal diyaar u tahay daryeel caafimaadna u sameysay ciidamadii qaranka ee ku dhaawacmay Raas Kamboni wax dambiyana aysan u haysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaarkood shalay dhaawacooda loo qaaday magaalada Muqdisho si ay u helaan daryeel caafimaad oo ka wanaagsan kan Kismaayo ka jira iyadoo sheegtay inay ka xun tahay dagaalkii darrad ka dhacay Raas Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay si nasiib darro ay isugu dileen wiilal Soomaaliyeed dhanka kale waxay sheegtay inay ahayd dhacdo laga baaqsan karay balse sababtay dhimashada iyo dhaawaca wiilal Soomaaliyeed taas oo lagu dhameyn karay wada hadal iyo istinaasul gabagabadii warbixinta Jubbaland ayaa lagu sheegay hore ayaan uga dignay oo cod dheer ayaan ku sheegnay in dagaalkaas uu soo abaabulayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud